afhayeenka xisbiga wadani barkad jaamac batuun ayaa wax lagu xumaado ku tilmaamay hadalkii maalnimadii shalay ahayd ka soo yeedhay wasiirka wasaaradda horumarinta gaadiidka iyo jidadka ee uu ku durayay dhalinyarada reer Boorama. Afhayeenka oo ku sugnaa madasha lagu soo dhaweynayay Abwaan Cismaan ku Jarray ayaa hadalkani maanta ka jeediyay isagoona sheegay inuu hadalkaasi aan wasiirku u meeldayin dhalinyarada reer Boorama uu xaal ka siinayo. magaalada Burco waxaa shalay toona yimid oo ka hadlayay wasiirka gaadiidka wasiirkaasi wuxuu ka hadlay oo dhaliilayay gobolka Awda annagu waxaanu bilihii ugu dambeeyay madaxweynaha iyo xisbiyada iyo aqooyahanka iyo bulshada caalamkuba culayska ay saareen Somaliland waxay dunida ka iibisa badeecada haysaa waa doorasho sidii doorashadan dalka kolba dib u dhacaysa doorasho loo qaban lahaa oo xuquuqaha muwaadiniinta ee dastuuriga ah iyo kuwa ku jaraba uu hadlayay loo heli lahaa oo ninkii marka bartanka leeyahay buu hodlaan musharax ka ahay دشان يا طبعا سنو برلمان كفردية دتك حقه دمقية هاي إلى ده حقوق دولة إهلا وسياسة الإسلام قاطعي وسياسة قرن كورني قريب وينوكاها وسياسة ما تشرها هو هين مدحوينها هي وقدومياشة حساب معارف وسياسة الدنيا هي برشة العالم داخل الدور الشدة إن نجاب حساب بقولها وسيلة درجة كتيرة وح مناسب كوا وواجب كوا سياسة مدحوينها هي دم تقرن كأنه كل شقيا شلة تولنا وادروجيدين واحد عادي وضتشوي أو لقى wada hadlay sidii dalkan doorasho uga dhici lahayd oo labeyntii gobolka Awda iyo hormoodkii madaxda xisbiyada iyo dawladda iyo madaxweynuhu ay ka wada hadleen caqabad kasta iyo qodax kasta doorashada horta la sidii looga qaadi lahaa waxa qaybta koowaad iyo mas'uuliyadda koowaad ay saaran tahay wax xukuumadda wasiiraduna waa inay ku shaqeeyaan siyaasadda madaxweynaha laakiin inay madaxweynihii ay hoos dhigaan mudaaciyo iyo masaabiir oo waxaan maanka galay ninka wasiirka wuxuu ku tiiraabay oo aflagaadeynay uu si qadafo falxun ula hadlayay gobolka Awda dhalinyarada gobolka Awda xisbiyahan waxaanu aaminsanahay Somaliland og tahay tacabka ugu badan cidii Somaliland dhismaheeda gelisay ee lagu soo aasaasay tiirasha nabadgelyada iyo horumarka iyo sharciga iyo dawladnimada Somaliland in magaalada Boorama iyo gobolka Awda salaadiinta gobolka Awda siyaasiyiintooda culimadooda haweenkooda iyo dhalinyaradooda Somaliland waxay kaga jiraan taariikhdeeda baaldahaba aflagaadiye qadafna ma geeyaan fogeyn iyo ceebeyn ma geeyaan in Somaliland laga sheegto oo ninintu Burco yimaado ilaahdo waad kibraysaana xaq ay leeyihiin maaha xurmo ay leeyihiin maaha lagama xishoonin waxaan isleeyahay haddii dhalinyarada Awda uu la hadlayay iyo haddii bulshada Awda la hadlay wasiirku ma dhaadana kumana foogana faraawilka geedka Somaliland qurxiya inay tahay aqoonta dhalinyarada gobolka Awda Somaliland cid uga laxay jecel badan salaadiinta Awda siyaasiyiinta Awda iyo aqooyahanka Awda ma jirto tabasho iyo cabasho iyo calaacal iyagu ma qabaan laakiin waxay leeyihiin wanaaga iyo horumarka Somaliland baan markasta caalamka u sidana illa soo dhaweeyo oo wax lala eego meeto مسؤوليتنا عدة مدح حقوق عندهم مدحوينها هي حسبية هوشة سنة ولا معطى doorashaduna way noo dhacaysaa ninka wasiirka ay hadalka uu meeldayn anagoo ku hadlaya afka xisbiga dhalinyarada Somaliland ee sharafta leh ee reer Awdal xaal baan ka siinayaa hadalka xanafta lahaa ee xurmadooda iyo xuquuqdooda muwaadinimo meel kaga dhacayay Somaliland nin hargeyso joogay nin Burco joogay nin Berbera jooga reer Awdal dhalinyarada kama sheegan karay waxaan isleeyahay waqtiga doorashada way gaadhay dhalinyarada Awdal waxaan leeyahay doorashadu galeynaa calanka hore hormuud waxaan ugu haydeen Somaliland oo nabadgelyada iyo doorashada iyo wanaageeda ka shaqeynayeen maantana ka bartan ka hadlayay iyo noociisu yana wax kale ku sunti oo godka ha u gelinay ka booda xaalna ka qaato ereyada aan meel dayga lahayn isaga waxa uu taala 3 sano wasiir ahaaye 12 kiiloomitir buu 3 sano wada sameeyay ceebka weyn miyadu garanaysa 12 kiiloomitir ninka wasiir ahaaye madaxweynaha ugu yeeray 12 kiiloomitir ma wadooyin baa loo diray mise waxa lagu yiri garabka dhalinyarada kulmiyaha ee dhalinyarada Awdal u jawaab waa ayaan darooyinka iyo mas'uuliyad darrada ka muuqata maamulka kulmiye weeya noocaas oo kalena inay dalka xil ka qabtaan oo ummadda hormadu noqdaan ma shalay waxa ku joogay markay reer Awdal xoolahooda qalayeen ay Somaliland dhisay Somaliland cid maanta doorashada ka qabanaysa ee wanaageeda jecel waa reer Awdal waa Siddex Maxamed Xasan Som News TV Burco.